lay dhakhtarka waa lay dhigay markaan 3 cisho imika qalnaa ayay barar keentay saaid ay xoog u barartay kadib shalay baan qalin labaad galay waxaa laga sheegay xaniintu inay dhimatay oo ay damaged oo aan xaniintaydu noolayn kadibna waa layga saaray dee rajadaan qabaa waxa weeye haddii imika sharcigu ninkaa gacanta igu soo dhigi waayo waxa weeye maalintaydaan sugayaa maalintayda insha allah. hadda garabkayga waxaa fadhiya maxamed cali maxamed oo ah inankii laagga lagala dhacay xiniyaha maalintii ay xisbiyada mucaaridku ay dhigayeen mudaharaadka. maxamed, ugu horeyn waan kugu soo dhaweynaya saab t v, bal ka waran xaaladaada caafimaad. waan dhawey walaal, waan ku dhawey de xaalkayga waad arkaysaa dhakhtar baan allaa waxaan ka mid ah mudaharadayaashii maalintii mudaharaadayay halkaa kheyryada marayay inantii lagu tumanayay baan bilayska ka riday oo ka reebay war xiniyahaad inanta nagaga reebtay xaggaad ka keentay buu igu yidhi mukhtaar la idhaa dambi baadhaha saldhigga dhexe ah way la dagaalameen iyagoo afara xiniinta isaga ay kaga tuntay xiniintaydii imikana way dhimato oo layga saaray aniga cusbitaalka allah xiniintayduna waxay dhimatay intii aan saldhigga ku jiray 9 cisho saldhigga igu hayeen waanan wax dhakhtar arag hal mar bay dhakhtar geeyeen dhakhtarkaasi wuxuu ku yidhi waa emergency oo la qalayaa dee kadib iyagu mas-uuliga may hayn oo may qalayni saldhigga igu soo celiyeen oo way igu sii hayeen markii aan ka soo baxay aan dhakhtarka imina waa taasoo waa lay qalay weliba 2 jeer baa imika lay qalay markii hore dhiig baa laga soo daceeyey xinjira xiniinta markii labaadna waa tana waa layga saaray imika way dhimatay xiniintaydii miyir beelay markay xiniinta laadka igala dhaceen waxaanan soo miyirsaday anigoo saldhigga dhexe ku jira oo dhex jiifa weliba qeybta oobiga ee dadka maaragtay magaca lagaga qoro maarag halkaa anigoo dhex jiifan soo baraarugay markaasaan deetana sugaaday in saldhiggii lay keenay. hadda xiniintaadu way dhimatay? waa dhimatay haa, xalay baa layga saaray xalay. marka baaqaad u diraysaa maxay tahay maadaama aad xiniintaadii ku weyday mudaharaadkii? baaqaan u dirayaa waxay tahay ninkaa aniga igu dhuftay xiniinta toos baan u garanayaa mukhtaar baa la idhaa waa madaxa baadhaha saldhigga dhexe waa la wada garanayaa dee waxaan codsanayaa in lai soo xidho imika isagii. markii uu xiniyaha lagaaga dhuftay laaga ee saldhigga lagu geeyey maxaad kala kulantay saldhigga? saldhigga waxaan kala kulmay saldhigga waan ku xidhnaa markaan 3 cisho xidhnaa waxay yeedhay 2 sarkaal mid waxaa la idhaa cabdi cali xayd midna waxaa la idhaa diin qale waxay weydiiyeen mid wuxuu igu yidhi 3 xusbi qarankee baa taageertaa waxaan ku yidhi ma qabiilkaygaa jeceshay inaad ogaato aan si toosa kuugu sheegay deetana kii kale waa fadhiyay igu yidhi war 4 degmee 4 xaafadood Hargeysa keebaad degtaa waxaan ku yidhi weli qabiilkaygaa diidaysaani ima wareysanaysaan ma qabiilkaygaa doonaysaan inaad ogaataan baan ku yidhi dabeetana macawistaan iska bixiyey xiniintaan ka dhaawacnaa baan tusay anigu dhaawac baan qabaa baan ku niyoonaa dhaawacan baan weliba xidhanay wareysaad wareysataanna qaadi kara maya dad qoladeeda doonaysa inaad ogaataan si toos ii weydiiya baan ku yidhi oo waan iskaga tegay saldhiggii baan iskaga xarooday qolkoodii waan ka baxay oo lay xareeyey haddana 2 cisho kadib dabagala ay wareystay dabagale jananka ciidanka isagu geed bayguma soo gabana toos buu yidhi qolo maatay waxaan ku yidhi taliya ma qolaa mudaharaaday mise xusbi qaran baa mudaharaadayay wuxuu igu jawaabay maya habar yoonisi baa mudaharaaday iyo 200 midgaah ayaa mudaharaadaysay buu igu yidhi waana janankii dhammaaya ciidamada bilayska noocaasu isaguna igu jawaabay su-aashaas ii weydiiyay anna saasaan ugu jawaabay intaa wixii ka dambeeyey isna dhaawacaygan soo waxaan ku yidhi taliya anigu waan dhaawacanay xiniintaasaa laygu dhuftay mas-uulkii ugu sarreeyay ciidamada qarankaa tahay warna kama haysid saldhiggan waxaa ka socda kuwii igu dhuftayna way joogaan oo ninkaasaa igu dhuftaan iyo madaxa baadhaha saldhigga ah intaa wax dheer oon ku hayaana ma jirtee anaaba anigu dhakhtar u baahan baan ku ihi maanta oo dhibanaa intaa wax dheer oon isweydiinay ma jirto. saldhigga imisaad ku xidhnayd? waxaan ku xidhnaa 9 cisho. 9 cisho ma heshay gargaar caafimaad? maan helin wax gargaar caafimaad maan helin gargaar caafimaad ayaa macaa ehelkayga layma soo dayn dadka marka dadkay baadi doonaya yimaadaanay saldhigga iga baadhayeen ma jooga baa lagu dhaha dadka qaar baa madheero loo dhaadhiciyo madheero ka baadi doona bay ku lahaayeen cid layma soo daynin. markii aan ka soo baxay maxkamadda layga soo daayay ayaama kadib baan dhakhtarka imi ayaama kadib baa dhakhtarka lay keenay
dhakhtarkaana imika laygu qalay 2 jeer 2 jeer baa lay qalo maanta ku 5 cishaan halaa dhakhtarka. Marka hore waa lay qalo xiniinta dhiig baa laga soo daadiyey xinjiro oo dib baa lay tolay dhakhtarka waa lay dhigay markaan 3 cisho imika qalnaa ayay barar keentay saaid ay xoog u barartay kadib shalay baan qalin labaad galay waxaa lay sheegay xiniintu inay dhimatay oo ay damaged oo aan xiniintaydu noolayn kadibna waa layga saaray. Rajadaan qabaa waxa weeye haddii imika sharcigu ninkaa gacanta igu soo dhigi waayo waxa weeye maalintaydaan sugayaa maalintayda insha allah. xaata dhakhtarkan aad ku jirto ma dowladda ku keentay mise qoyska? Maye dowladda iyo qoyskaygu midnaba ima keenin waxay keenay guddoomiyaha musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan axmed cabdilaahi adigu xisbiga mucaaradka ay keenay igana bixiyay dhakhtarka ilaahay baana ka abaalmarin doona. Dowladda keentayna ma jirto qoyskayguna ima keenin. Marka hore waa lay qalo xiniinta dhiig baa laga soo daadiyey xinjiro oo dib baa lay tolay dhakhtarka waa lay dhigay markaan 3 cisho imika qalnaa ayay barar keentay saaid ay xoog u barartay kadib shalay baan qalin labaad galay waxaa lay sheegay xiniintu inay dhimatay oo ay damaged oo aan xiniintaydu noolayn kadibna waa layga saaray. Rajadaan qabaa waxa weeye haddii imika sharcigu ninkaa gacanta igu soo dhigi waayo waxa weeye maalintaydaan sugayaa maalintayda insha allah. hadda garabkayga waxaa fadhiya maxamed cali maxamed oo ah inankii laagga lagala dhacay xiniyaha maalintii ay xisbiyada mucaaridku ay dhigayeen mudaharaadka. maxamed ugu horeyn oo kugu soo dhaweynaya saab t v bal ka waran xaaladaada caafimaad? waan dhawey walaal waan ku dhawey xaalkayga waad arkaysaa dhakhtar baan allaa waxaan ka mid ah mudaharadayaashii maalintii mudaharaadayay halkaa kheyryada marayay inantii lagu tumanayay baan bilayska ka riday oo ka reebay war xiniyahaad inanta nagaga reebtay xaggaad ka keentay buu igu yidhi mukhtaar la idhaa dambi baadhaha saldhigga dhexe ah way la dagaalameen iyagoo 4 xiniinta isagaa igaga tuntay xiniintaydii imikana way dhimato oo layga saaray aniga cusbitaalka allah xiniintayduna waxay dhimatay intii aan saldhigga ku jiray 9 cishay saldhigga igu hayeen waanan wax dhakhtar arag hal mar bay dhakhtar geeyeen dhakhtarkaasi wuxuu ku yidhi waa emergency oo la qalayaa kadib iyagu mas-uuligamay hayn oo imay qalayni saldhigga igu soo celiyeen oo way igu sii hayeen markii aan ka soo baxay aan dhakhtarka imina waa taasoo waa lay qalay weliba 2 jeer baa imika lay qalay markii hore dhiig baa laga soo daayay xinjiro xiniinta markii labaadna waa tan waa layga saaray imika waa dhimatay xiniintaydii miyir beelay markay xiniinta laadka igala dhaceen waxaanan soo miyirsaday anigoo saldhigga dhexe ku jira oo dhex jiifa weliba qeybta oobiga dadka maaragtay magaca lagaga qoro maarag halkaa anigoo dhex jiifan soo baraarugay markaasaan deetana sugaaday in saldhiggii lay keenay. hadda xiniintaadu way dhimatay? waa dhimatay xalay baa layga saaray xalay. marka baaqaad u diraysaa maxay tahay maadaama aad xiniintaadii ku weyday mudaharaadkii? baaqaan u dirayaa waxay tahay ninkaa aniga igu dhuftay xiniinta toos baan u garanayaa mukhtaar baa la idhaa waa madaxa baadhaha saldhigga dhexe waa la wada garanayaa dee waxaan codsanayaa in lai soo xidho imika isagii. markii uu xiniyaha lagaaga dhuftay laaga saldhigga lagu geeyey maxaad kala kulantay saldhigga? saldhigga waxaan kala kulmay saldhigga waan ku xidhnaa markaan 3 cisho xidhnaa waxay yeedhay 2 sarkaal mid waxaa la idhaa cabdi cali xayd midna waxaa la idhaa diin qale waxay weydiiyeen mid wuxuu igu yidhi 3 xusbi qarankee baa taageertaa waxaan ku yidhi ma qabiilkaygaa jeceshay inaad ogaato aan si toosa kuugu sheegay deetana kii kale og fadhiya igu yidhi war 4 degmee 4 xaafadood Hargeysa keebaad degtaa waxaan ku yidhi weli qabiilkaygaa diidaysaani ima wareysanaysaan ma qabiilkaygaa doonaysaan inaad ogaataan baan ku yidhi dabeetana macawistaan iska bixiyey xiniintaan ka dhaawacnaa baan tusay anigu dhaawac baan qabaa baan ku niyoonaa dhaawacan baan weliba xidhanay wareysaad wareysataanna qaadi kara maya dad qoladeeda doonaysa inaad ogaataan si toos ii weydiiya baan ku yidhi oo waan iskaga tegay saldhiggii baan iskaga xarooday qolkoodii waan ka baxay oo lay xareeyey haddana 2 cisho kadib dabagala ay wareystay dabagale jananka ciidanka isagu geed bayguma soo gabana toos buu yidhi qolo maantay waxaan ku yidhi taliya ma qolaa mudaharaaday mise xusbi qaran baa mudaharaaday wuxuu igu jawaabay maya habar yoonisi baa mudaharaaday iyo 200 midgaa ayaa mudaharaaday buu igu yidhi waana janankii dhammaaya ciidamada bilayska
noocaasu isaguna igu jawaabay su-aashaas weydiiyana saasaan ugu jawaabay. intaa wixii ka dambeeyey isna dhaawacaygan soo waxaan ku ihi taliya anigu waan dhaawacanay xiniintaasaa laygu dhuftay mas-uulkii ugu sarreeyay ciidamada qarankaa tahay warna kama haysid saldhigan waxaa ka socda kuwii igu dhuftayna way joogaan oo ninkaasaa igu dhuftaan iyo madaxa baadhaha saldhigaa intaa wax dheer oon ku hayaana ma jirtee anaaba anigu dhakhtar u baahan baan kuhi maanta oo dhibanaa intaa wax dheer oon isweydiinay ma jirto. saldhigga imisaad ku xidhnayd? waxaan ku xidhnaa 9 cisho. 9 cisho ma heshay gargaar caafimaad? maan helin wax gargaar oo caafimaad ma helin? maan helin gargaar caafimaad ayaa macaa ehelkayga layma soo dayn. dadka marka dadkay baadi doonaya yimaadaanay saldhigga iga baadhayeen ma jooga baa lagu dhaha. dadka qaar baa madheero loo dhaadhiciyo madheero ka baadi doona bay ku lahaayeen, cid layma soo daynin. markii aan ka soo baxay maxkamadda layga soo daayay ayaama kadib baan dhakhtarka yimi. ayaama kadib baa dhakhtarka lay keenay. dhakhtarkaana imika laygu qalay 2 jeer baa lay qalo maanta ku 5 cishan alaa dhakhtarka. marka hore waa lay qalo xiniinta dhiig baa laga soo daadiyey xinjiro oo dib baa lay tolay dhakhtarka waa lay dhigay. markaan 3 cisho imika qalnaa ayay barar keentay saaid ay xoog u barartay. kadib shalay baan qalin labaad galay. waxaa lay sheegay xiniintu inay dhimatay oo ay damaged oo aan xiniintaydu noolayn. keedna waa layga saaray. dee rajadaan qabaa waxa weeye haddii imika sharcigu ninkaa gacanta igu soo dhigi waayo waxa weeye maalintaydaan sugayaa maalintayda insha allah. xaata dhakhtarkan aad ku jirto ma dowladdaa ku keentay mise qoyska? maye dowladda iyo qoyskaygu midnaba ima keenin. waxay keenay guddoomiyaha musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan axmed cabdilaahi. adigu xisbigaa mucaaradka ay keenay igana bixiyey dhakhtarka. ilaahay baana ka abaalmarin doonaa. dowladda keentayna ma jirto, qoyskayguna imuu keenin.